الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم caawa iyo codka shacabka doodo sidaan horey ugu ballansanaynba ama aan maanta soo boosagareeyayba barnaamijkeenii ka bixi jiray channelka codka shacabka doodo iyo facebooka angi weli sheekh axmed ayaa mar labaad inoo bilaabanaya ilaahay yiraahdo oo caawa aanu qodobo muhiima kaga hadli doono insha allah. soo dhawaada please. soo dhow maxaa xaaji ciyaarta qabayda laga sugeynaa galmudug iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed iyagoon kala saarayn galmudug iyo kuwana taageersan iyo kuwa maaragtay naga soo horjeeda dhammaan waan soo dhaweyneynaa. fadlan idinkoo raaliya codkeyga sidee ii soo gaaraya idinkoo raaliya codka sidee ii soo gaaraya bal insha allah intaa ila wadaaga waxyar idinkoo raaliya codkeyga sifiican idii soo gaaraya mise waa yara gaaban caawa iyo codka shacabka doodo qodobada aad ka daawan doontaan oo ka dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah carar guud iyo dhowr qodob oo kale oo ah ganacsadaha ama wakiilka shirkadda qaadka ee gobolka doolo cidda uu yahay iyo halka uu maaragtay kasoo galo xukuumadda il iyo igaalo joog. sidoo kale waxaasna kaga hadli doonaa qodobka labaad. wacalaykum assalaam cabdiraxmaan carab soo dhow baraada codkayga fadlan sidii soo gaarayo ila wadaaga bal insha allah. iyo qodobka labaad oo noqon doona sidee ayaa xisbiyada gacan ku-xidhiskaa ee deegaankeena ka jira ee xilliga doorashada magacooda iyo muuqooda laba la noqdo ama la arko looga dhigi karaa xisbiyo active ah oo sidii la arki jiray ama la yaqaanay ah xisbiyo mucaarada haddana xisbiga talada haya heliishiisa usoo jeedin kara sidoo kalena ay register uga noqon karaan dowladda dhexe. sidaan wada ogsoonahay xisbiga talada haya ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya keli ah ayaa inoogu jira liiska xisbiyada dowladda dhexe aragtiisa daysan, laakiin labada xisbi ayaa xisbiyadan deegaanka kula tartamay xisbigan talada haya muuqooda iyo maqalkooduba wuxuu ku egyahay xilliga doorashada oo xitaa xilliga doorashada jiro intii joogta ay maqmaqasho aan lagu arag fagaarayaasha siyaasadda. sidaa daraadeed sidee ama xisbiyo actifka looga dhigi karaa oo sida xisbiyada deegaamada kaleba ku jira dowladda dhexe maaragtay looga aqoonsan karaa xisbiyo jiro oo muuqdana u noqon karaa. iyo qodobka ugu dambeeya oo ah goob gaaban. haddaba soo dhawaada mudan magaaliya marweyn taageere mu-ayid ama mucaarad kaa doonta ahow. muhiimaddu waxa weeyaan ma aha inaad aniga taageedid ama fikirka galmudug aad taageertid ee muhiimaddu waxa weeyaan inaynu wax isfahansiino hala kala qaadano. soo dhawaada ila cabdullaahi tahliil xaaji saciid jumcaale
dhammaantiin soo dhawaado. Maqalkaygu waa sidee? Maqalkiisiyo codkaygu idin soo gaarayaa fadlan. waa mar kale iyo codka shacabka Doolo, oo yacni codka shacabka Doolo markaan idin leeyahay fadlan ha u qaadanina wax u gaara reer Doolo. waxa weeyaan janalka ama youtube-ka aad kala socon kardhaan barnaamijyadan ayaa magacaa la yidhaahdaa. marka idinkoo raalliya sida ula socda, waa janalkani ama hoobigan barnaamijkan haddana wadnaa wuxuu quseeyaa ama uu garab taagan yahay ama uu la afkaar iyo maaragtay aragti yahay Dulmadiid Group, waana qayb ka mid ah Dulmadiid Group si toosan uga horsata. walaalayaal, mar labaad ayaan salaamaya, salaamta islaamka idinku salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxba maaragtay hadda maaragtay kala sii sulimayno. haddii aan ku bilaabo kow, horta waxaan hambalyeynayaa aadna u soo dhaweynayaa shirka madaxda Dulmadiid ee qaaradda Yurub ee ka dhacaya Sweden, magaalada Gothenburg, Stockholm. waxaa la leeyahay dhammaan bulshada halkaa ku nool oo kula dardaarmayaa inay dhammaantood ka qayb galaan, anigoo si khaasa fariin ugu diraya qurbo joogta reer Doolo oo khaasatan Sweden aan ku filayo nambar adag oo muhiim ah, weliba ah dad maaragtay deegaanka iyo axwaashta la socda, iyagoo aan leeyahay xilligii la baqayay ama maaragtay dib la isu dhigayay waa la dhaafay. Cabdi iyo kooxdiisu ama xigtiisu waa gabal sii dhacaya ama doon gabi ka luudata. sidaa daraaddeed walaalayaal, dantaada lagama boqo, afkaartaadana lalama boqo. waxaan kula dardaarmayaa inaad si dhammaystiran uga soo qayb gashaan shirkaas. sidoo kale jaaliyadda ama qurbo joogta halkaa ku nool ee reer UBS ayagana waxaan leeyahay waayaddii way dhammaatay, fadlan dareerihiina usoo banaanbax kana soo qayb gala shirka Dulmadiid Group ee halkaa ka dhacayo, oo dhammaan madaxdiisii hadday ahaayeen reer Yurub, hadday ahaayeen reer maaragtay America, dhammaan qaaradaha dunida intooda badan ay maaragtay iman doonaan haddii Ilaahay yidhaahdo. intaa markaan ka gudbo, walaalayaal, waxaan rabaa wax yar inaan iyana ka hadlo arrin ilaa maanta ilaa iyo caawa soo isbaxday oo ahayd xubno Dulmadiid Group magacooda adeegsanayay ama ka mid ahaa, oo iyagana lagu soo eedeeyey inay maaragtay tawaasiis u yihiin Cabdi iyo xigtiisa ama xukuumaddiisa xil iyo xilkiniyo hujoog, kuwa oo lagu soo eedeeyeyna oo ahaayeen maaragtay daalimiinta taatuusiin. anigu shakhsi ahaana aanan maaragtay xukumiyeyn iyo wax kasta maaragtay u baahan yihiin in dhinacyo badan laga eego, baaritaan dheerna la sameeyo. sabab waxaa la yihi haddaad aragtid qof calooshu ka soo jeedo oo uu ku yidhaahdo qofkaas ayaa caloosha iga soo riday, ilaa aad asagana wareysatid xukunka lama gaaro oo qofkaa lagama taaggaraya dembigaas. haddaba waxaan si guud usoo jeedinayaa horta waxa weeyaan group kasta ama dhaqdhaqaaq kasta oo bilowda oo ka dhanca group kale ama maaragtay ashkaas kale wuxuu yeeshaa mucaarad badan iyo sidoo kale in asaga laftiisa maaragtay lagu soo dhex dhinto. sidaan wada ogsoonahay ama aan ku caddeeyey qoraalkayga talada guud ee Dulmadiid, asxaabteeni iyo nabigeena salawatullaahi calayhi wasalam
oo loo waxyoonayay ayaa waxa weeyaan ay ka buuxeen munaafiqiinta. haddaba sidee ku dhacday muhiim maaha, iyo maxay u dhacday waxaa muhiim ah, sidee ayaa hadda iyo kadib looga hortegi karaa. waxaan qabaa kuna qoraalkaygana ku caddeeyey in looga hortegi karo oo keli ah in dhammaan dhalinta dulmidiid ama dhaqdhaqaaqa dulmidiid intooda la hubo, la masgabo ama maaragtay registration ama laswada maaragtay qoro. markaa kadibna la samaysto barkulan u gaar ah oo ay dhammaan dhalinta dulmidiid dunida daclada meel kasta ay joogaan ay ku kulmaan. gruubkaasoo hadduu doonana noqon kara Facebook, hadduu doonana WhatsApp noqon kara. waxba ku dheeraan maayo sida aan u arko iyo sida waxaan maaragtay ku qoray ama aad ka heli kartaan qormada aan idinla wadaagay ee ah kala bixin guud oo dulmidiid ah. sidaa daraaddeed waxaan qabaa in arrinkaa looga bixi karo in la helo xarun dhexe ama barkulan dhammaan dhalintu iskuna barato, laguna kala warqaato oo gruub ah. taas oo maaragtay fududeyn karta in qof kasta oo maaragtay dhaqdhaqaaqan ama ku jira hadda ama ku soo biira halkaas macluumaadkiisa lagu hayo, isla mar ahaantaana kii isbedela ama shuruucda loo dhigi doono ku dhaca halkaas maaragtay go-aan looga qaato, si guudna maaragtay hal go-aan looga soo saaro. sidoo kale kan ku soo biirayana si maaragtay dhammaystiran laysaga hubiyo, maadaama aynu ognahay in qoladan daalimiinta ay jijiro fadhida ay si kastoo ay maaragtay inu ku kala jebin karaan isku dayayaan, ama arrinkanba xitaa ay dhici karto in loola jeeday ama ay ahaydba maaragtay in kala shaki dhalinta lasoo dhex dhigo. daba si taxadar leh arrintaas tan hadda taagan iyo tan iman doontaba waxaan leeyahay looga maaragtay tilaabo qaato. waxaa looga gudbi karo ama maaragtay looga adkaan karaana waa taladooyinkaas aan soo jeediyey, weliba si faahfaahan aan qoraalkayga maaragtay ugu soo gudbiyey, oo ah in la helo hal meel oo laguna kala warqaato lagana maamulo dhammaan xubnaha dulmidiid group oo dhaqdhaqaaqa dulmidiid. sidaa ayaan walaala tala ahaan usoo jeedinayaa, anigoo idinlana wadaagay oo qormahaan igula wadaagay. cabdilla dhubad saaxib, soo dhawow islaan, aad baan kuu soo dhaweynaya islaan. walaalayaal intaasi waa maaragtay iga aragta guud iyo kala bixintii aan usoo jeedinayay dhaqdhaqaaqa dulmidiid iyo madaxdiisa. haddii aan guda galo barnaamijka, walaalayaal waxaan wada ogsoonahay dulmiga iyo tacadiga iyo maaragtay cadajugleynta iyo hanti ka tabcashada iyo hanti ka dhicidda deegaankeenna ay ka wadaan cabdi iyo kooxdiisa cil iyo xidiidnimo ku joog. haddaba wararka maanta nagu soo biiray ama toddobaadkanba maaragtay soo gaari ayaa waxay tahay in lagu magacaabo ilka casi, oo magaciisa ilka casi laygu soo gaabiyey oon laga faahfaahin. ninkaas oo shirkadda kali ee qaadka deegaanka maaragtay u qaybisa mas-uul ama wakiil uga ah gobolka Boobo. markii aanu xogta helnay ayaanu mahadsanid walaalo, mahadsanid. adigu si adag baad u hadashay ayaan, laakiin gabar baa tahay, waxba hadalkaaga hadduu adkaado ma lahan. okay, wadani DSI, mahadsanid saaxiib, mahadsanid. waxaan malaynayaa aayar noole mase waaba ninba gabadha ayaa manuqay aayar noole. walaal mahadsanid. haddii adiga maaragtay aadan maqlayn, isku dayba inaad maaragtay iska hagaajiso khadkaaga. dadka hadda meesha kuula jiraa kuwaas codku waa
sax ayay leeyihiin. marka haddaad daacad tahayna waa daacad baa tahay, haddii aad maaragtay qoladii daalimiinta ahayd ka socotidna whatever you are, you are most welcome. walaalayaal, marka ninka odagaa markii aanu warbixintii helnay ayaa waxaa dhacday inaanu balfaadino ama dabagalno bal waxaa ka dhaxeeya asaga iyo xerta il iyo xidiidnimo ku joog iyo cabdi maxamed cumar oo warkaco ee deegaanka afduubka ku haysta, maadaama aanu ogeyn inaan qof ama mas-uul meel loo magacaabin ilaa iyo inuu ama xidid yahay ama xigaare uu leeyahay xukuumadda. waa mahadsantihiin dee in badan baan ku celceliyey magaranaysaa, bal si wax loo maqlay ila wadaagaya. hadda waa sidee, hadda sidee ayaad u maqli kartaa, hadda sidee ayaa codku idiin soo gaaraya? wadani DDSI sidee lay maqlaa hadda walaal, sidee lay maqlaa? hadda sidee ayaad ii maqli kartaan? fadlan iisoo qora si codkaygu idiin soo gaaraya. hadda fadlan haddii codka wax iska bedelaan ila socodsiiyo. okay, aan wax yar ka bedelo marka ayo haddaan saan idhaahdo. hadda ka warrama markas, hadda sidee waaye? hadda ma clear ba mase weli waxbaa ku jira? hadda waa sidee? hadda wadani DDSI ayar weli miya adiga xaggaaga weli weeye miya? hadda sidee marka ayaad ii maqashaan? waxaan tijaabinayaa marka aanan maarata headphoneka adeegsanayn. hadda sidee weye? ma hoos baa weli codku waa sidee? hadda codku waa sidee? fadlan iisoo jawaabay idinkoo raalliya. codku sidee idiin soo gaaraya hadda? codku sidee idiin soo gaaraya hadda? xumahay aawa tijaabooyin badan anaan soo samayn. walaalayaal iga raalli ahaada. waxaa laga yaabaa maygu inuu iga xun yahay. waxay noqonaysaa marka sidee hadda bal hadda ugu dambeyn markaan u dambeysa iisoo qora. haddii ay markaas weli ay codka hooseeyo waxay noqonaysaa inaan maaragtay aan barnaamijka ama halkaa ku joojino ama aan wax kala raadiyo. waa sidee hadda sida uu idiin soo gaaraya codkaygu? wadani hal mar oo kale bal iisoo celi adigoo raalliya, hal mar oo kale kusoo celi. dadka qaar baa sax soo qoraya, qaarna marku maqlay soo qorayaan. marka wixii si toosa ii maqlaya ama codkaygu fasiix kusoo gaarayo fadlan ila wadaaga. haye hal aad baan uga xumahay in weli codka hooseeyo.
aad baan uga xumahay talagal ma ahayn waa cilad maaragtay hadda inagu timid haddaan marka si fiican hadda lai maqal oo hadda mayga aan ka maarmay marka mar una hadda sidee weye waa sidee codka hadda mudane mar weyne ka raalli ahaada cilad si farsamaha ku timid weeyaan maygaageer xumaadaan u malaynaya ilaya maanta intaan ka maqnaa marka bal hadda sidee buu idiin soo gaarayaa codkaygu finally marka haddii uu weli hooseeyo waxay noqonaysaa inaan barnaamijka dib u dhigano maadaama barnaamij aad muhiim u ah uu yahay marka bal hadda sida ugu dambeyn idiin soo gaarayaa waa sidee hadda ugu dambeyn sidee ayuu idiin soo gaarayaa faysal jaamac soo dhawow ugu dambeyn hadda sidee idiin soo gaarayaa ugu dambeyn please waa ka xumahay ciladaas aaw inagu timid waa cilad aanan ku talagelin okay mahadsanidin walaalayaal maadaama aan markii hore la yidhi si fiican laguma maqlayo aan ku soo cesha marka intii maaragtay codkayga aan sida fiican loo maqlayn mudanayaal iyo marwooyin barnaamijku waa barnaamijkii dulmidiid oo aanu kaga hadalno aalaaba dhacdooyinka deegaanka dalka guud iyo deegaanka iyo gaar ahaan gobolka magaciisa aan meesha ku qornay haddaba waxa weeyaan walaalayaal kala soo jeedintaydii baan ku celinayaa mar labaad ku saabsanayd kala shakigan ama xubnahan hadda la soo eedeeyey ee maaragtay dulmidiid ka tirsanaa ama magaca dulmidiid watay waxaan ku talinayaa ama soo jeedinayaa in si fiican maaragtay looga baaraandego arrimaha qaar oo baaritaan dheer la sameeyo oo waxa weeyaan wax kasta oo maaragtay kala shaki ama inagu keeni kara maaragtay tafaraaruq si wanaagsan looga fara buuxsado waxaan wada ogsoonnahay dhaqdhaqaaq kasta ama revolution kasta ama kacdoon kasta oo kaca in maaragtay lasoo dhex galo ama tashuush lagu furo ama xitaa dee jawaajiis caadihi maaragtay lagu dhex darsado haddaba nabaray ogtahay naftu kama naxdee lama dhaho sidee bay ku dhacdee waxaa la yidhaahdaa sidee ayaa lagu xallin karaa dhacdadaas cusub ee timid sidee lagu xallin karaa ayaa la yihahdaa sidoo kale dhacdadani ma aha ugub ee waa curad waa wax dhici jiray oo ilaa iyo maaragtay asxaabihii soo taxnaa oo aad ogeedeen oo munaafiqiin maaragtay lagu soo dhex daray iyadoo weliba dee nabigana salawatullahi alay slam loo waxyoonayay oo wax kasta uu ogaa haddaba su-aashu waxa weeyaan tani waa sugeynay oo kolle aniga dee waa wax aan sugayay ahayd ee sidee lagu xallin karaa aniga ka maxamed ahaan fikirkayga waxaan qabaa arrinkaas in lagu xallin karo loogana hortegi karo ayadoo la samaysto nidaam iyo shuruuc dadka kala hagta muxsin walaal la soo dhawow mahadsanid doollo waa magaca janalka codka shacabka doollo waa magaca janalka lagala socon karo maaragtay barnaamijyadan waxa aanu ka hadlaynaa ma aha wax doollo keliya oo khaas ah waa guud ahaan dalka iyo deegaankaba haddaba walaadaan sii wato tala bixintaydii waxaa looga gudbi karaa arrintaas ama maaragtay looga gaashaaman karaa iyada oo laga samaysto shuruuc
shuruucdaas oo kale qeexaysa qofku wuxuu xubin ku noqon karo ama siduu ugu soo biiri karo gruubkan, sidoo kale waxa uu xubinnimadiisa ku waayi karo sidoo kalena la samaysto ama maaragtay mas-uuliyiinta dhaqdhaqaaqan dulmidiid ay arrinkaas dood ka yeeshaan, isla mar ahaantana la sameeyo barkulan ama group whatsapp ama maaragtay facebook ah oo dhammaan dhalinyarta dulmidiid ay ku kulanto, iyadoo dib oo habeyn lagu sameynayo dadka magacyaan sita ama maaragtay taageera, lana kala hubinayo qofkii la hubiyo ee la ogaado afkaartiisu inay tahay afkaar maaragtay saxa oo taageeraysa dhaqdhaqaaqan, markaas gruubka lagu daro, sidaana maaragtay looga qoro ciwaankiisa iyo magaciisa oo saddexan. waxba ku dheeraan mayo oo waxa weeyaan iyadoo qoraala ayaan maaragtay idinla wadaagay, madaxdana la wadaagay, taas intaa ayaa looga gudbi karaa ayaan isleeyahay. haddaan u dhaadhaca barnaamijkaygii oo qodobkiisa koowaad uu ahaa ninka la yihahdo Ilka Case oo shirkadda Kaali ee qaadka uga wakiil ah gobolka Doolo, oo ayaantanba maaragtay ayna soo gaaraysay, wararkiisuna soo gaarayeen, annana aanu dabagal ku samaynay bal halka ay isaga xirmaan ama maaragtay iska soo galaan xukuumadda xil iyo xidhiidhnimo gujoog, maadaama aanu ognahay xukuumadda Cabdi Maxamed Cumar iyo xirtiisa xil iyo xidhiidhnimo gujoog inaan qof meel wakiil looga dhigin ama xil looga dhiibin ilaa iyo inuu bahwadaag la yahay madaxweynaha iyo xirtiisa qayb ka mid ah, oo ama xidid uu yahay ama uu xigaalo la yahay. markaanu baaritaan dheer samaynay waxaan soo ogaanay Ilka Case ninka la yidhaahdo inuu xidid la yahay, gabarna ka qabo faamiliga ama qoyska reer Laba Goole, oo uu qabo gabar marwo sharaf leh oo ina Laba Goolaa, sidaana ay u sahashay inuu wakiil u noqdo gobolka oo asagu keligii qaadka halkaa geeyo si monoboliyana maaragtay loogu xiro. walaalayaal waxa weeyaan taasi hadda maaragtay jahwareer inagu noqon mayso ama maaragtay dhib badan maaragtay dareensiin mayso, maadaama aanu wada ogsooneyn in qof kasta oo mas-uul meel looga dhigo ama wakiil laga dhigo ama maaragtay xil loo magacaabaa ay ahayd shuruudaha lagu xirayo inuu yahay qof xidid ama xigaalo la ah madaxweynaha ama xertiisa. shalay waxaanu ogeyn ama aan barnaamijyo hore kaga hadalnay guddoomiye Buraale oo ahaa guddoomiyihii gobolka Doolo ee hore oo dhowaan laga soo bedelay inuu xigaalo la wadaagay ama xigaalo ay ahaayeen madaxweynaha deegaanka, isla mar ahaantaana eedadi dhashay oo ilma abtiilmeeda ay ahaayeen. cabashooyin badan iyo magaranaysaa tacadiye u geystay oo maaragtay dadkii deegaanka iyo jaariyaduhuba maaragtay ka gudbiyeen oo fashil ku dhawaaday oo laga baqay inuu maaragtay ilaa ay heer maaragtay dowladda federaalka gaaro, ayaa halkaas waxaa looga soo bedelay guddoomiye Buraale. waxaase noo dhuuntay oo warbixinihiisu ay gadaal naga soo gaareen ninka la yidhaahdo Ilka Case oo xididka la ah ama gabadha ka qaba qoyska reer Laba Goole, isla mar ahaantaana siidiga laxmiya uu yahay ninka haysta ciidamada liyu booliska, sananka ugu sarreeya ciidanka liyu booliska, oo ay ilmo adeer yihiin madaxweynaha deegaanka. sidoo kale sida uu reer Laba Goole ama qoyska reer Laba Goole ninkan xididka uu leeyahay oo gabadha uga qabo ayuu madaxweynaha laftiisa oo ay ilmo adeer yihiin ilmo Laba Goole isagana ay xidid u yihiin. taasina waa tan u fududaysay asaga oo maaragtay shakhsi caadiya iska ahaa oo aan barnaamijkan ama ganacsigadan qaadka
ku dhex jirin maaragtay in ay u fududaato inuu si fudud kula wareego ama uu noqdo qofka ugu sarreeya ee gobolka ganacsiga qaadka. walaalayaal qaadku asagoo mar kastaba aan ahayn wax wanaagsan oo daraag ah oo mar kastaba maaragtay aanu jecelayn ama maaragtay taageerno in maaragtay lagala dagaalamo bulshada iyo dhalinyarada deegaanka. walaal waa mahadsan tahay muxsino. waxaan u malaynayaa haddii aan baqayno dee codka iyaga aragtida iyadaa ka muhiimsan. marka ma boombalaa waxa meesha fadhiyaa soo aniga maaha oo hadlaya. haddii aydan codkayga si fiican oo hufan u maqal bliis waa maaragtay barnaamijka dib baan u dhiganayaa, idinkana idin khasaarin mayo, anna is khasaarin mayo. xitaa kor baan u hadlayaa si maaragtay codkayga idiin soo gaara. marka bal last take decision. codkaygu hadduusan si fiican idiin soo gaarin raalli baad iga ahaaneysaan. marka bal xubnaha kaloo idinna hadla. muxsin dhowr jeer buu ka cawdaya isagoo codkee ma wax asaga ku gaaraa mase waa wax maaragtay lala wadaago. muxsinow waad u jeedaa aan umaynayaa waa adigay kuu gaar tahay, adigay kuu gaar tahay walaalow, adigay kuu gaar tahay. dadka kale waad aragtaa sax baa loo maqlaa leeyahay. marka barnaamijka dee ciwaan buu leeyahay, ciwaankaad ka garan kartaa maaragtay wuxuu ku saabsan yahay. ciwaanka maaragtay bal si fiican u eeg oo barnaamijka haynaga qasin. walaalayaal halkan baan kasii wadanaynaaye ninka odaga xigaalada la ah xukuumadda xilliga xeetinimo ku joog ragga ugu sarreeya ee madaxweynaha deegaanka iyo ninka generaalka ugu sarreeya ee haysta ciidamada liyu booliska isla mar ahaantaana ah hoggaanka nabadgelyada. xilalkaas ay xidhiid ka hayaan iyo xilkaa uu asaguba ku helay xidhiidtinimada ayay u fududeeyeen. mahadsanid mudan, mahadsanid. kadib maxaa dhacay? waxaa dhacday maadaama uu ganacsigan daraaga qaadka uusan ninkani markii hore ku dhex jirin ama profession uusan u lahayn, waxaa dhacday in xitaa maaragtay asaga laftiisii uu maaragtay tacadiyadii kaga qayb qaatay. halaha uga qayb qaatay waxaa ka mid ah qaadku sida aad ogtihiin waa dowlad guureysa camal ama dowladduba la mid yahay badii. wuxuu sameeyey ganacsigii qaadka oo shalayto intaan asaga monobaliga loogu xilin ka iman jiray dhinaca aya gaashaamo isla mar ahaantaana dhalinyaro isku dhafan oo maaragtay reer dooloodii ay maaragtay ka ganacsan jireen ama nimbe markiisa keeni jiray in uu asagii maaragtay loo gaar yeelay. isla mar ahaantaana asagiina uu ku darsaday inuu xitaa faracyadii ka baxayay gobolka doolo ee deegaamada kale ama degmooyinka kale aadayay uu isla iyagiina sida asaguba maaragtay loogu gacan bidixeeyey uu ugu gacan bidixeeyey dad ehaalkiis ah oo dhalintii ka ganacsan jiray ama maaragtay tartanka la geli jiray oo tartami jiray oo maaragtay wada tartami jiray uu shaqadii ka fariisiyey. isla mar ahaantaana dad cusub oo isugu jira saraakiil liyu boolisa iyo dhalinyaro maaragtay aan professionkan ku dhex jirin oo asagu maaragtay hawshii u xil saartay. iyadoo sida aan la wada soconno ama aad ku taqaanaanba shaqadan maaragtay daraagan qaadka deegaan kasta ama magaalo kasta qof maaragtay ka soo jeeda ama maaragtay ku abtirsada ganacsigaa uu fuudeyn jiray ayuu ninkani wuxuu sameeyaa asaga oo adeegsanaya awoodda saraakiisha maaragtay kambaniga la wadaaga in ay dhaheen dhammaan ka gees annaga ayaa gaarsiinayna oo qof aan ahayn xaafadayada
ama gruubka xil iyo xidhiidhnimo maaragtay ku joog shaqadaa ma qaban karo. xitaa waxay gaareen heer kuwa qaadaya iska daaye kuwa u fadhiya magaalooyinka kale ee degmooyinka ama santarada ganacsigan la geynayo ay geystaan wakiilo ayaga ka socda. wakiilo ayaga ka socda taas oo maaragtay noqonaysa aniga keligay aan jumlo iyo tafaariiqba u faa'iido. walow qaadku ama draagan bulshada lagu dhibaateynayo faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa anagu hadda aanaan maaragtay soo dhaweyneyn, haddana yacni bal ka warran wixii xumaa ama maaragtay shaqadii xumayd ninka dadkii ku dhibaateeyey ama ku tacadiyey tii wanaagsanayd muxuu ka yeeli lahaa? waxaan leenahay ama naga soo gaaraya bulshada reer doollo in dhammaan ganacsiyadii oo xitaa dee kii ugu dambeeyey ee qaadkee draaga ah ee bulshada badankeedba aysan ku qanacsanayn monoboligaas ama afduubkaas oo ninkaas dhallinyarada ah ee ilka casa la yidhaahdo ee gabadha ama murugada sharafta leh ee ina laba goolaha u dhaxdo uu awood ciidan iyo awood maaragtay madaxweynaha oo maaragtay seedigiisa uu ku muquunsaday, sidaana bulshadii lacagtii kaga guranaya isagoo isla mar ahaantaana xoolihii deegaanka u qaadanaya qaad. oo waxa weeyaan qofkii dayn lagu yeesho ama waxaa qashinkaa cuno oo dayn looga yeesho halkii awal la iska sugi jiray ama maaragtay wax un la maarayn jiray ciidanka inta loo adeegsado, maadaama saraakiil ciidanka ka mid ah ay maaragtay ganacsiga qeyb ka yihiin, inta ciidanka loo adeegsado oo baadiyihii loogu tago laga soo qabsanayo ama laga soo kaxaysanayo neef lo ah ama neef geela oo waxa weeyaan xitaa ka badan dee waxa lagu leeyahay iyadoo ganaax looga dhigayo. marka maaragtay la yidhaahdo hantidaad qabtay hanti ka badan baa laga qaadanaya uu yidhahdo dee baaqi ii socesha la leeyahay maye maadaama aad maaragtay lagaa waayo xoolihii ganaax ahaan ayaa loo qaadanayaa inta kale. bal xaggee lagu arkay shirkad ganacsi oo wax ganaaxaysa ama dowladba? walaalle leel dhibaatooyinka qaadku bulshada uu ku hayo oo awalba aan ogeyn ayaa haddana maanta waxaa lagu sii daray in xoolihii bulshada lagu dhacayo iyadoo oo la adeegsanaya shaar dowladeed. shaarkaa dowladda uu adeegsanaya ama wakiil uga yahay ninka la yidhahdo ilka case. ilka case sida warkunu soo gaarayaan halkii tariib ama maalinkii qaadkaasi soo galo deegaanka marka u yar ilaa 12 geela ama dibi ah ama lo ah ayaa waxa weeyaan u dareersadaa, asagoo qofka haddii lagu leeyahay 500 oo bir haddii lagu leeyahay 1000 bir haddii lagu leeyahay 200 oo bir mar kastaba qofka loogu awood sheeganayo hantida laga qaaday hadday ka badan tahay hantida lagu leeyahay si cad loo dhahayo maadaama howlgal kugu soo baxay oo ciidan kugu soo baxay oo maaragtay waqti ku galay inta maqan ee xoolahaaga maaragtay waxaan kaa qaadnay iyo waxa lagu leeyahay ka saa'idka waa ganaax. sharcigaasi DDSI iyo dalweynaha Ethiopia meel uu maaragtay kaga jiro ama maaragtay kaga qoran yahay ma jirto in shirkad ganacsi oo qof shakhsi leeyahay ay bulshadii ganaax ka qaado. waataan hadda ka hor idiin sheegaya ee idin lahaa intay bulshadii soo shiriyaan oo hore rasuul keenaya waxay dhahayaan waxaanu dib idinku celinaynaa ama aan idinla wadaagaynaa faa'iidadii aanu ka helnay qaadka. haddaba ogaada faa'iidada qaadka laga helayo la sheegayo ama laydinla wadaagayo waa xoolihii shacabkiina ama dadkiina oo lasoo dhacay. ileen maantayta waxa weeyaan marka iyadoo lagu leeyahay 1000 bir ama 500 oo bir iyo wax la mid ah qaalin geela ama maaragtay riti 4 jir ama 5 jir laga qaato ama dibi weyn laga qaxaysto oo ama
10,000 ama maaragtay 8,000 joogay oo kumbir loo qaato intii kale ee baaqaad u yeelan lahayd meeshii inta maaragtay la qiimeeyo lagu celin lahaa la leeyahay ganaax baa loo qaatay iyadoo la adeegsanayo awooddii iyo sharcigii iyo saarkii dowladda ciidamadii dowladda ee loogu talagalay inay amniga sugaana maaragtay ay ka qayb qaadanayaan barnaamijka oo ayagu ay yihiin kuwa qofka baadiyaha xoolihiisa inta ugu taga soo mooroduugaya ama ka soo dhacaya waa nasiib darro cabdi maxamed cumar iyo xukuumaddiisa iyo xidhiidhnimo ku joog inay bulshada dhinac walba ka barakicinayaan in maanta ay marayaan oromo oo ay shalayna lahaayeen waa cadowgayo ama waa cadow oo aan la yaabanayn oromaa cadow ah iyo habeen kasta ama saacad kasta ama sakan kasta ayaanu waxaan siinaynaa malaayiin bir bal xaggee lagu arkay qof aad leedahay waa cadowgay ama waa maaragtay nagu cadow haddana aada ganacsigiisii ama maaragtay commoditigiisi iyo badeecadiisii adigu aada iib geynaysid oo lacag kaasha oo adagna u geynaysid maanta lacagtii kaashkaadii cadeed waxaa lagu daray xoolihii dadka masaakiinta ee abaara kasoo doogga ahaa ee dhibaataysnaa in xoog inta looga qaado mijin qaada loo qaadanayo neef araya ama 2 mijooda qaada loo qaadanayo qaalin lo ah ama qaalin geela isla mar ahaantaana qofku uusan xaq u lahayn ama aan jaas loo siinayn inuu wixii inta la qiimeeyo waxa lagu leeyahay maahane waxa kale loo soo cesho si kale arrinkaas kuma suurtagelina wuxuu ku suurtagalay ciidamadii deegaanka ee mishaarka ay qaadanayaan uu ahaa canshuurta shacabka laga qaado ya oo haddaan canshuur shacabka laga qaadin aysan mishaar heleen ayaa iyagii loo adeegsanayaa laguna bahdilayaa laguna abuse garaynayaa arrinkaasi maaha arrin aanu soo dhoweyn karno insha allah waxaanu isku dayeynaa inaanu hay-adaha ay qusayso aanu la wadaagno maadaama xaalufindee iyo cayrtayn lagu wado bulshadii bal ka waran haddii la yidhi magaalada ugu yar ee qaadkaasi tago halkii tariib wuxuu kala tegayaa ilaa 10 neef oo xoolaha qaybahooda kala duwan ah yaa bal xisaabi tusaale degmada galaadi oo kale waa 37 maaragtay qabale ama tuulo iyo santarre isugu jira 37 ku dhufo oo min 10 ah waa intee jaayib waa wax tiradii ka batay in xoolo nool loo qaata qaad waxaa inoo keenay xukuumadda xil iyo xidhiidhnimo ku joog abid kamay dhicin in xoolo nool loo qaato mijin qaada halkii la rabay xukuumaddu inay maaragtay ka hortagto ama maaragtay aysan xayeysiin ama maaragtay siday ku yarayn kardho ay ku yarayso isticmaalka daraagan ayay waxa weeyaan ayadii advertise garaynaysaa ama waxa weeyaan booming ka dhigaysaa oo bulshadii maaragtay uga dhigaysaa dhinacna waxay uga dhigaysaa wax wanaagsan oo intay soo shirisay waxa leedahay qaadkii aan idin siinay lacagtaan idinka soo qaadnay idinka faa'iidnay ayaanu dib idinku celinaynaa taasoo berri ka maalin waalidka lacagtaas la soo siiyey markuu gurigiisa yimaado oo ama ganacsi bilaabo uusan ilmihiisi ku oran karin qaadku waa waxun isagoo ilmuhuna ugu jawaabayaan haddii uu qaadku waxun yahay ama maaragtay uu xoolo shaydaan yahay waay aad lacagtaan aada nagu biilaysid ama ganacsiga ku haysatid suuqaadka kamay soo bixin oo faa'iidadii laga helay maaha jawaabtaas su-aashaas oo aysan jawaab u ahayn dhammaan waalidiinta deegaanka soomaalida sidoo kale waxaa iyana aan jawaab loo hayn oo xukuumadda xil iyo xidhiidhnimo joog aysan jawaab u hayn inay fagaarayaasha kaga qudbayso ama taageerayaashoodu marka ay kula hadlayaan ay ku leeyihiin waxaad soo raacday ama bahalkan inay garab siinaysaa cadowga oromada ama oromada oo cadow inagu ah haddii aada weydiisid oo aad tiraadid wareer dhee oromadu bal kaba soo qaad inaan taada ku raaco oo oromadu cadow inagu tahay
oo ay runtaa tahay walaalow lacagta ugu badan ee kaashka ayaa ku taageera deegaanka Oromiya. waxaan wada ogsoonahay dunidan aynu joogno ganacsiga laba dal ama laba deegaan dhex maraya badanaa waa badeeca ku beddelasho. way adag tahay waddan ama deegaan kale lacag kaash ah gacanta u saara. dhibaatada Soomaali guud ahaan iyo gaar ahaan deegaankeenaba haysata ayaa waxay tahay in aan badeecadaas suntaa naloo keenay aanan wax ku beddelan oo badeeco kale aanan ku beddelan aan lacag kaash ah ku beddelano isla mar ahaantaana ku caawino deegaamada uu naga soo galo. tusaale dalkan Soomaaliya oo kale labada dal ee dariska ama Ethiopia iyo Kenya every night wuxuu ku caawiyaa wuxuu ugu yaraatay $5 milyan oo lacag adag ah oo dollar ah. haddana waa fakhri ayaa la leeyahay. sidaas oo kale ayaa deegaanka Soomaalidu wuxuu every night ku caawiyaa deegaanka Oromiya $2 milyan ilaa $2 milyan lacag u dhiganta oo kaash ah. bal ka waran maamulka asagu ka ganacsada qaadka lacagtaana Oromiya u geeya haddii uu bulshadii ama shacabkii uu ka dhaadhicinayo Oromadu waa cadowgeen. war haddii cadowgeen ay tahay sootii labada dal markay cadaawad isu qaadaan ama dagaal dhex maro ay cilaaqaadka intay isu jaraan waxa weeyaan ganacsigii halkaa ku joogsan jiray. heerka iyo dadaalka ay maaragtay u maraan in qaadka ay ka soo qaataan dibna lacag ugu celiyaan yani Oromadii laftigeedii oo danaysnaa oo qaadka ayaga laga soo qaaday lacagta kaashka loo geynayay ayaa inta wadooyinkii tooska ahaa xireen ayaa waxaa dhacday qaadka kililka yimaada inuu ka soo wareego dhul fog oo halkaa iyo Dirdhabe kor soo maro oo taraag aan kii hore ahayn uu soo galo. haddaba Cabdi Maxamed Cumar iyo xukuumadda xil iyo xiriirtinimo ku diin iyaga oo ilaa heer ka gaaray every night na $2.5 milyan ku caawinaya deegaanka Oromiya ayay bulshadii iyo shacabkii waxay ugu sheekeynayaan Oromo waa cadowgayo oo waxa weeyaan aanu iska dhicino oo aan la dagaalano. marka xukuumadda booli qaran bal caqligaas annaga haysu kaaya saadho oo bal su'aalahaas ha nooga jawaabto. sidoo kale dadka deegaanka DDS waxaan leeyahay bal fakara oo isweydiiya sideeba maaragtay la idinka dhaadhiciyey ama aada u qaadateen in la idin yidhaahdo Oromo waa cadow isla mar ahaantaana inta lacag kaasha la idinka qaado oo qaad la idin siiyo lacagtii oo kaasha oo juwaana ku cabaysan aan xitaa bangi la marin ee toos loogu geeyo deegaanka Oromiya. bal isweydiiya shacabka reer DDS xukuumaddiina ma weydiin ka dhaan kolle idinku isweydiiya sidee ku dhacday inaan cadowgay maalin kasta malaayiin bir siiyo oo wax caqliga geli karaa. walaalayaal yacni waxay ka mid tahay hadallada qar iska tuurka ama iska dhexdaa ama maaragtay aan ku fadhiyin micnaha ee maamulka ama qoladan booli qaran ee hadda haysata deegaankii xukunta si kastaba ama booli qaran aan idhaahno ama waxa weeyaan xukuumadda aan idhaahno waxaanu wada ogsoonahay inay tahay xukuumad deegaanka xukunta isla mar ahaantaana qaabkay la doonaha lagu soo doortay hadda deegaanka ka talisa. marka waxba inoo faa'iideyn mayso inaan xukuumad inaana iyo inaan booli qaran inaana waa maaragtay isla halkii unbay tegaysaa. marka xukuumaddaasi inay dadkiina ka dhaadhicisa waa cadow Oromo misna malaayiin bir baan siinaynaa waa madax iyaga waa geli weeyay jawaabna waan u weeyay. aan ku soo noqdo qodobkii aan ku bilaabay iyo ninka ilka casaliyaade ee diigmiiradka ee waxa weeyaan maanta maraya in uu xoolihii ama iskintii geelii iyo lo'dii
oo nool inta lasoo qafaasho oo qofki baadiye loogu tago wiil yara waxaa liiga sheekeynayey oday baa waxaa dhaayay nin dhallinyaraa oo kuwa magaalada jooga ah ninkii baa qaad dhowr jeer ka qaatay meel maqsin ay ku leeyihiin wiilkii lacag baa lagu yeeshay odagu wiilkani waa horuu dayro ka noqda waa taqaanaa dee dadka miyiga joogaa marka wiilku uu magaalada soo galo dayru ka noqdaa way dayriyaan waxaa dhacday wiilkii markii lacagtii lagu yeeshay in ciidan ku soo baxay odaygii iyo reerkiisii oo waxa weeyaan la gabagabeeyey waxa weeyaan anigu maanta oromo dhib iyo cadowtinimo aan u jeedo oo igala dhexaysaa ma jirto laakiin waxaan la yaabanahay ninka ku sheekeynaya waa cadow misna malaayiinta bir ugu deeqaya bulshadii xukuumadda raba inuu ka dhaadhiciyo in oromo cadow tahay ama markaad la heshid taageerayaasha hadda waad aragtay marmanaya cabdi hadalka koowaad ay ku dhahaan waxa weeyaan waxaad maaragtay noo soo raacday cadowga oromada isma weydiin karaa ama haddii aad weydiisay jawaabkaa siin maya su-aashaas war hadday cadow tahay maxaad maalin kasta lacagta u siisaan weliba xukuumaddu ay kambaniga keli la yidhaahdo ugu samaysato ila hataa qof shacaba hadda hadduu ahaan lahaa oo kambaniga lahaan lahaa macquul baa ahaan lahay laakiin xukuumadda ayaa iska leh kambanigan oo madaxweynaha iyo ilmaadeerti baa iska leh kambaniga qaadka waxaana laga xoogay gabar zuhur la yidhaahdo oo dhammaan ilaa iyo soomaaliya waqooyiga soomaaliya iyo deegaanka o dhan baa iyadu gaarsiin jiray ayaa laga soo xoogay iyada iyo shirkadda kokolladaba iyadoo loo adeegsanayo shaarka dowladda oo power abuse lagu sameynayo waxaa dhacday marka hadalkaygaasitay ninkii dhallinyarada ahaa ee aabihii ay kala tageen waa hore ee dayrada ka ahaa markii lagu soo baxay ee ciidankii yimid in la yidhi aabbahaa meeyo aabihiisa magaalada jooga lasoo qabto liyo nabad nagu dareero xoolahaagi baadiye in la tegay yacni wax kale markii la waayey ritigii gurgushaaga ahaa ama reerka maaragtay dhaanka iyo maaragtay markuu guurayo u ahaa gaadiidka ayaa laga soo maaragtay keenaysta odaygii la afduubay ee la khasbay ee ninkii dayrada ahaa ee awalba xoolamadarka u yaqaanay daraaddiis maaragtay xoolihiisii loo soo afduubtay markii uu yihi waree dhahaya haddaadba maaragtay wiilkaygu wuxuu qabo maaragtay cunay ama isticmaalay oo anigu shala idi oran siiya aad maaragtay xoolahayga u qaadanaysaan dee bal xoolaha ii qiimeeyo neefkaan geelahay ama ratigaani waa qiimo ka qiimo badan yahay waxaad raadinaysaane bal inta qiimaysaan baaqiga isiiyo jawaabtii la siiyey odagaas waxay noqotay adeer ganaax ayaa idinku dhacay maadaama lacagtan in badan wiilkaagu qabay isla mar ahaantaana hadda ciidan iyo qarash maaragtay kusoo baxo howlgal loo soo aaday sidaa daraaddeed lacagta baaqiga ee dheer lacagta aan kugu leenahay ganaax ayaa loo qaatay sidaa markay dhacday odaygii sidii baa ritigiisii maaragtay gurgushaaga ahaa ama roreyga ahaa waxaa u qaatay ilka case iyo saraakiishii ligii booliska oo adeegsanaya ganacsigan la wadaaga walaalayaal waxba ku dheeraan mayo oo waxa weeyaan waynu wada ogsoonahay dhibaatada qaadku dhinac kastaba uu noo leeyahay halkaan ka haray ilka case aanu laabto qodobkayagii kale ee ahaa xisbiyadan maaragtay ama xisbi ku-sheegan deegaanka ka jira ee la maqlo xilliga doorashada un horta bal magacyadooda ila wadaaga ciddii maaragtay si fiican ugaysa laba xisbi kolle weye mid waxaa dulwebi miyaa la dhahaa midka kalena waxbaa kale lagu sheegaya marka bal ciddii si fiican u taqaanay magacooda horta ila wadaaga haddee yani waan in badan baan taagnaa iyagoo maaragtay labakta afuufayo maaragtay waxaan jirin actin ah sameynaya laakiinse dee wixii jira oo maaragtay shaqeynaya oo active ayaad magac u tahay magacooda qaban kara laakiin wax aan jirin oo maaragtay maalmaha un doorashadu socoto labakti afuufo oo maalinba nin loo dhiibo iyo magacooda aada uma xusno kadib marka bal magacooda nala wadaaga mase maadaama codku aada u gaaban yahay
dib ayaan uga dhiganayo mar codku fasiix yahay oo aan ka hadalnaa. waxaan u malaynayaa maadaama codkuna gaaban yahay doodanna dood adag ay tahay oo xisbiyadan bal nooca ay yihiin iyo say u shaqeeyaan iyo xilliga ay shaqeeyaan iyo bal sidii maaragtay aynu uga dhigi lahayn xisbiya active ah oo shaqeeya aanu iska wareysan lahayn waxay ku fiican tahan u malaynayaa inaanu ka dhigano bal mar kale qodobkaa marka dib baan u dhiganaynaa. walaalayaal aad baad mahadsan tihiin. ciddii ama qodobadan ka hadlay dood ka qabta ama barnaamijka rabta inay la wadaagto oo u baahan soo qabto waa soo qabanayaa. waan soo qabanayaa ciddii rabta inay barnaamijka la wadaagto. fadlan qofka u baahan kusoo dhawow. ayaa diyaar oo in la soo qabto. وعليكم السلام عبد الرحمن عرب aad baan ku salaamayaa. xaasayda soo dhawow badan soo dhawow. waxaan umaleeyaa barnaamijka qodobka horaan ka soo hadalnay ninka dhigmiiratada ah ilka casal la yiraahdo gobolka Doolo wakiilka uga ah shirkadda Kali ee qaadka deegaanka Geesa oo waxa weeyaan xidid iyo xigaalaba la ah madaxweynaha qabana gabadh ina adeertiisa oo ina laba gole la yiraahdo gobolkii Doolana xoolihii ka dhameeyay. ma waxaad aragtay mijin qaada ama laba mijood oo qaada oo loo qaadanayo ama wanka subalka arig maartay idaha ku jira ama orgeyga qoorka ariga ku jira ama waxa weeyaan dibiga kudaagaye looda ku jira ama maartay ritigii gurgushaaga ahaa ama roreyga ahaa ee maartay heer ku dhaansanayeen isla mar ahaantaana يعني ninka qaadka cunay ama maartay dhibkan keenay laga yaabo reerkaba inuu soo ka tirsanayno maartay iska jiri meelaha ku noqdo waa horaba reerka maartay ay xisaabta ka jareen laakiin markuu maartay qaamoobo reerkii iyo xoolahoodii la gabagabeynaya iyadoo la adeegsanayo ciidankii dawladda waxa weeyaan ka baxa oo tagaan baadiyii oo u lugeeyaan ayay waxay soo qabanayaan xoolihii ya baadiyihii tagaan oo xeradaada kugu yimaadaan ayay neefka xoolaha ka dhaqaaqaya soo qabsanayaan. weli kamay dhicin deegaanka wiil qaad cunay qaadkaa deyntii loogu yeeshay inta aabbihii loo tago xoolihiis in maaragtay lasoo gabagabeeyo. weli deegaanka kamay dhicin in 20 nin oo waxa weeyaan isku xaafadihii ay ganacsigii qaadka oo dhan la wareegaan oo xitaa tuulooyinkii iyo santaradii iyagu fadhiistaan. ayaan soo qabtaa maartay barnaamijkaas bal aragtidiisa ka dhiibanaya. waxaan umaleeyaa cidna hadda diyaaru maaha. walaalayaal waa soo gabagabeynaya barnaamijka qodobkaas isaga bahalkan yaa looga hadlayo soo dhawow. qodobkaas muhiimka ee xisbiyada ragaadka ee deegaanka ka jira looga hadlayo dib baan u dhiganaynaa maadaama qodobkan hadda aan ka hadlay ee waxa weeyaan maartay ku saabsan dhibaatada awalba dhibtii hore anagoo dhib hore ku qabnay oo waxa weeyaan dhalinyaradii maartay waxbarashadii iyo shaqadiiba kaga hareen qaadkii in maanta la marayo in xoolaheenii inta baadiye la tago arigii iyo geelii maartay loo soo afduubanayo ama loo soo kaxaysanayo mijin qaada wiil jiriyo magaalada ku cunay. tacadiyada ama meelaha ugu daran ee hadda dagaalka ugu daran oo marayo ee dadka xoolahooda lagu xaalufunayo ee xukuumaddan sii laalaada ay rabto maartay dadka inay kaga sii xooleysato ayay ka mid ilka case oo la ah madaxweynaha iyo ninka la yiraahdo in laba gooraba xidid la ah oo walaashood qaba yacni waxaa lagu leeyahay every week tirooyin ariya iyo kadimo geela
iyo fadhiyo lo ah ayuu ka dareeriyaa gobolka doollo isagoo halkaa iyo galbeed usii iibgeeya ama oromadu maaragtay lacag ahaan loogu qiimeeyo xoolahaas. marka waa dhaqaala burburkii ama dhaqaala dirirkii ugu xumaa ee deegaanka abid soo mara, iyadoo welibana ay fulinayaan dhaqaala burburkaas iyo dhibaatadaasi ciidamadii biyubooliska ee loogu talagalay inay dadka sharaftooda iyo amnigooda ay sugaan, laakiinse hadda dadka sharaftooda iyo cizigooda ku ciyaaraya, dhibaataynayana xoolahoodina maaragtay xoog uga qaadanaya. aad baad u mahadsantiin walaalayaal, intaas ayaan kusoo kaaminayaa barnaamijka. insha allah guul ayaan rajeynayaa. insha allah waxaan rajeynayaa dadka reer DDSI dhammaan in dhibaatadaani haysato, loona baahan yahay dhammaan dulmidiid inay ka hadlaan, yacni in laga hadlo ama maaragtay aan kusoo koobnaano ma ahan qof baa la xiray iyo qof baa loo soo hanjabay, waa inaanu ka hadalnaa dhibaatooyinka dhaqaale ama dhaqan dhaqaale ee cabdi iyo xertiisu ay ku hayaan deegaanka. waxa weeyaan waxaan ka soo hadlay oo hadda barnaamijka horey aan kaga soo hadlay sida maaragtay silent killerka oo waxa weeyaan ay fudud ee ay dadka maaragtay hantidooda uga faa'iideystaan una dhacaan, iyo shirkadaha ay u samaysteen sida shirkadda maaragtay raashimada oo dhan ama ilsiga raashinka haysata, midda ilsiga maaragtay cabitaanka haysata, dhammaan shirkadahaas oo maaragtay shirkadaha lagu dhaco hantida shacabka iyadoo looga qaato canshuur aan dowladda dhexaba maaragtay ka jirin, oo dowladda dhexe ay soo saartay wareegto ah inaan dhammaan wixii raashin ah ama qutul daruuriya aan la canshuuri bixin. sidoo kale waxaan idinla soo wadaagay xisbiga ama xisbi kusheega deegaanka ka taliya oo ilaa iyo heer maaragtay santar iyo heer tuul inta loo dhaadhiciyey shacabka looga qaado lacag la yidhaahdo qaaraan xisbi. qof kaste oo ka mida deegaanka oo deegaanka degan ama jooga ama ka shaqaystana lagu khasbay inuu bishii lacag bixiyo ay ugu yar tahay 50 riyaal. dadkaasoo loogu sheekeeyo waxaad tihiin xubno xisbi, taasoo sharci daraa oo xitaa haddii xisbigooda ama sharciga xisbiga ay maaragtay dadka kaga qaraabanayaan hoos loo sii eego aan xeeroosaadkiisa ku jirin, ee dadka xubno xisbiga la yidhaahdo ay yihiin dad qeexan oo la yaqaan. xafiiska xisbiga ama kambaniga xisbiga ee ilaa heer tuulo ama santar loo dhaadhiciyey sanad kasta caqabado bil kasta waxaa looga dhacaa shacabka malaayiin bir. anagu celcelis ahaan ka dhignay tuuladii ama santarkii inay bishii laga qaado lacag ilaa iyo 10,000 ama 12,000 oo bir gaaris. marka bal ku dhufo deegaankeena intii aragtay fara la eg oo tuulo kasta 15,000 ama 10,000 oo bir laga soo qaaday, intee malyan oo bir weey. lacagtaasi wax maaragtay rasiid ah ama juwan ah kuma baxdo oo looma jaro. in markii la soo aruuriyo oo tuulooyinka laga soo aruuriyo degmada ayay timaadaa, qaybteeda la hadhaa, gobolka ayay soo gudbisaa, qaybtiisa ayuu la haraa, gobolkuna wuxuu soo gudbiyaa heer deegaan iyo jigjiga, halkaas oo inta u dambaysa la geeyo laguna kala qaybsado. waa kambaniga ugu faa'iidada badan ee wax maaragtay income ah ama capital ah aan ka gelin cabdi maxamed cumar iyo xertiisa, haddana faa'iidada ugu badan ay ka helaan. oo gobolka ugu yar ayaa waxaa laga helaa bishii yacni 12 milyan oo bir ayaa laga helaa. marka walaalayaal dulmidiid asxaabta waxaan kula talinayaa in aan lagu koobnaan dhacdooyinka yaryarka ah ee laga hadlo tacadiyada iyo dhaqaale dirirka iyo dhaqan bi'iska iyo diin laawanimada iyo diin la-aanta shacabka lagu hayo ama lagu maaragtay dhaqamada xunxun ee laga dhex wado. qof walba oo ka soo hadal, qof walba waxa weeye tilmaan dhinac kasta nimankan haddaan maaragtay
looga furin dagaalka oo aan la bayaamin mushkiladda ay ummadda ku hayaan waxa weeyaan dadaalkanagu wuxuu noqonayaa hal bacaad lagu dhisay. Marka waxaan idin dardaarmayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaan ballaarino dagaalka oo habeen dhaqaalaha laga hadlo, habeen dhaqan biiska laga hadlo, habeen waxa weeye diin la diriirka aan laga hadlo, habeen beenta iyo beenawaasnimada maaragtay bulshada iyo colaadda lagu abuurayo laga hadlo. sidaas maaragtay ay u socoto hawshu. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan idin salaamayaa. waa mahadsantihiin.